casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Basics of Computer kooraskaas oo lagu baran doono computerka oo bilowga guud ahaan qaybihiisa kala duwan amba qaybaha bilowga ah ee computerka ka kooban yahay applicationka loo yaqaano Word-ka amba Microsoft Word-ka Microsoft Excel-ka iyo Microsoft PowerPoint-ka Microsoft Word waa applicationka inta badan lagu qoro documents-ka iyo waxyaabaha la xiriira halka applicationka Excel-na uu ka yahay applicationka xisaabaadka PowerPoint-na applicationka waxa weeyaan inta badan soo jeedinaha iyo warbixinaha aad ku soo bandhigi karayso iyo slideska iyo presentationada iyo wixii la midaba haddaba guud ahaan saddexdan application iyo waliba computerka bilowgiisaba waxa lagu bari doonaa kooraska Basics of Computers haddaba cidii u baahan inay warbixin dheeraad ah ka hesho waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga qoran amba kaaga muuqda si aad uga hesho macluumaad dheeriya iyo wixii su'aalaad qabtana aad u soo weydiiso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي عبون يسكو صنقود مركلة صاحب بيال عشر كينا ما انت وحاين كبران دونا إنينو بلونو شيء لو يقاني إكسلكا حتى بإكسلكا مركا دون سنة تكون شقيسو مركا روان صفرنا إنو حقا تغينا أين سيدي عادي جاين سيرشن كين وحان كوكور دونا إكسل حتى بإكسل محوية إكسل محوية وربحين أينو هرو قصو قادناي oo aynu chapterkeena bilowgiisa aynu ku soo qaadanay sadaradeed imika applicationka Excel aynu soo furnaa applicationkan Excel hadda markaan soo furnay page cusub oo si automatic ah imika isagu inoogu soo kiciyay sidii aynu Word-ka ku naqaanay marka imika waxa weeyaan page-kan uu noo soo furay waa lagu kala yahay page-ka hadda Excel Word-ku markii hore hal page uu ka koobnaa laakiin imika Excel-ku page kala duwan buu ka koobay shayga loo yaqaan workbook iyo worksheet labadaas ka koobay labadaana casharkeena ayaa ku saabsanaa imikaana aynu kala sharaxayna workbook hadaba waxa la yiraahdaa shayga workbook la yiraahdo waa shayga ay soo horskeli karayaan amba ay hoos iman karayaan shayyo badan oo worksheet oo imika halkan hoose waxa inoogu qoran sheet 1 sheet 2 sheet 3 haddaynu mid halka ay ka horeysaan ku daro sheet cusub baa soo gali sheet kale ku soo daray saasan u wadaya waxaano sheet laakiin waxayse ay u imanayaan oo ay ka tirsanaanayaan hal workbook imika haddii aan san iraahdo xagan tago on doorto save waxa save gareysanaya hal book Excel workbook save garay buu leeyahay marka bookaygan waxaan u bixinayaa oo kale waxaan leeyahay magac waxaan leeyahay bookii koowaad book haddaba book 1 kan imika aan qornay book 1 imika aynu sameynay baan niri save aan niri imika shaygani aynu save gareynay waa workbook maxaad ku xaqiiqsanaysaa in workbook yahay haddaynu isla bartiira soo furno oo aynu new doorano muxuu ina oranayaa soo fur plan cusub soo fur buu leeyahay workbook create baan leeyahay workbook muxuu ka kooban yahay saddex sheet ayuu ka kooban yahay marka workbook waa shayga guud sheetkuna amba worksheetkuna waa meesha lagu shaqeynayo waayahay inagu celi workbookani imika ayaan sameeyay haddaba worksheetka waa la delete gareyn karaa waana lagu soo dari karayaa imika worksheet 1 ka hadii aan right click iraahdo xagan delete baan leeyahay oo iga saar baan leeyahay uu iga saaray sidoo kale hadii right click iraahdo rename baan dooranayaa marka rename doortana magacii aan doonayay ayaan halkaa u bixinayaa marka anu imika magac baan ku qoray idinku si aad hadhow tolo magac ula baxdaan mid walba saasaad ku sameyn karaysan hadaa doonto waad qarin karaysaa hide baad leedahay hadaa doontana waad dooran karaysaa meesha ka move gareey baad leedahay oo move baad leedahay oo waxaad ku move gareysaa daatadiisii ka saddexaad saasoo kale aad u move gareynaysaa qaybka cancel baan niri sidoo kale hadii aan in yar idin sharaxo halkan sare iyo shaqaanadan imika hadii aan idin sharaxo intan sare horta waa isku mid waxyaabo yar oo ku soo kordhay mooyaan home page kan insert kan page layout kan format kan formulas waa page ku soo weeray formulas data review iyo view mid baynu dul istaagi doonaa sidii aynu hore Word-kiiba u soo barnay marka xagga sare hadii aan ka soo bilaabo god walba magac buu leeyahay imika xaggan sekadaas waa 1 oo sekadaas oo dhan waa 1 sekada imika aan doorto dhan waa 6 marka sekad walba magac bay leedahay sidoo kale column-kana magac buu leeyahay marka midna waa ku sidaa u dheer oo saas oo kale u dheer midna waa mid sidaa u ballaaran oo sidaa u dhuuban labada line bay kala yihiin ka sidaa u dhuuban iyo ka sidaa u ballaaran markay istiraan magac bay sameynayaan godka ugu horeysa imika hadii aynu ku dhufano xaggan sare maxaynu ku arkaynaa magaca A1 leeyahay A1 godka leeyahay bay joogtaan weeyaan oo xagganna waa ka 1 xagganna waa ka A
xaggan waa ka a baan idhi xagganna waa ka 1 marka maxay godkaasi noqday 1a godka imika haddaynu istaagno talo muxuu yahay waa d7 dhinacan waa ka d dhinacanna waa ka 7 kaa haddaynu istaagno ka war mid walba magaciisa halkaas mid ugu tegaysaa waa yahay imika halkan haddii aan ku qoray sad baan markaa qoray 44 sad 44 igee baan idhi inter baa siiyey muxuu halkan igeeyey halkaana godkaasuu igeeyey oo dhinacan 44kii ku beegan eeg hadda godkaas waa kaa xagganna muxuu kaga beegan yahay sadi labada dooran markaa waa maxay waa 44 iyo sad saa daraadeed xaggan waa sad 44 xaggan baad ku qori kartaa mar walba nambarkii aad u baahato l7 baan doonayaa baan idhi l7 baan doonayaa baan idhi inter haddii aan siiyo muxuu dul geeyey halkanna wuxuu geeyey 7 xagganna l buu geeyey markaa saa daraadeed mar walba labadani sidaas ayay kala yihiin haddaba excelka waxaa isticmaala shirkado badan oo lookaliya oo heer caalamiya iyo sidoo kale shirkado badan oo international ah inta badanna kambaniyada xisaabaadku waa application ay isticmaalaan san horeba idinku soo sheegay marka excelka xisaabaadka ayaa lagu sameeyaa cashirkeenan maanta bartaas inoogu joogi doonaa oo inta yare worksheetka iyo work planka iyo khaanadan noo soo muuqanaysa ayaan idiin sharaxayay laakiin si cashir ku xiga ayaan si qoto dheer u gelin doonaa qaabka xisaabaadka loogu sameeyo amba wax la isugu geeyo wax loogu kala jaro wax loogu isugu dhufto waxaasoo dhan oo xisaabaadka la xidhiidha cashir ku xigeen u geli doonaa laakiin cashirkeenan maanta bartaas ayay inoogu joogi doonaa tan iyo intaanu isugu iman doonaa cashirka waa aniga oo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan